السلام عليكم. qofka sida dhabta ku jecel wuxuu ku dhaweynayaa Allah wuxuu ku leeyahay kaalay aan quraanka wada akhrisano wuxuu kugu dhiirigelinayaa si aad aakhiro u shaqaysan lahayd gacantaada ayuu qabanayaa wuxuu ku leeyahay kaalay aan salaad tukano qofka sida dhabta ku jecel mustaankaaga ayuu fahmayaa inta aadan hadlin ka hor boqolaasheeka ayuu kaaga sheekaynayaa si uu kula sheekaysto wuxuu xiisanayaa codkaaga kaftankaaga qosol sheekadaada wuxuu kula fadhinayaa saacadooyin isagoo u maraya daqiiqado qofka sida dhabta ku jecel farxadaada waa farxadiisa marka aad faraxsan tahay ayuu u maleynayaa adduunka oo dhan oo faraxsan murugtaada waa murugtiisa dhibaatadaadana waa dhibaatadiisa qofka sida dhabta ku jecel si sahlan ma ku kala tageysaan haddii ay jirto 100 sababood oo aad ku kala tagi kartaan wuxuu raadiyaa hal sababood oo aad ku sii joogi kartaan ilintaada wuxuu u maleynayaa ilintiisa markaad ooydid ayuu u maleynayaa in adduunka oo dhan ay ooyayaan qofka sida dhabta ku jecel wuxuu raadiyaa mar walba wanaagaaga qofka sida dhabta ku jecel wuxuu ka fikiraa adiga oo aadan ogeyn jacaylkiina ayaa wax walba ka sareeya waxa walba adiga ayuu ka hormarinayaa qofka sida dhabta ku jecel wuxuu ku siinayaa kalsooni jacayl naxariis marka dadka oo dhan ay ka tagaan isaga ayaa kula joogo xaalad walba aad ku jirtid ayuu kugu jecel yahay sharaftaada ayuu ilaalinayaa danahaagana wuu ka fikiraa mar waliba والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.